السلام عليكم أصحابتي وإن سلامي بريان يوتيوب كواح مصورين إن شاء الله ويلكم باك سدح بريك بعدي هذا صولاب طي markii inta laga sii gudbo waa ikana anigoo Jakarta u sii socdo oo waxaan ku dhahay mooto saaran mooto maxaa u baran weysaa marmarka qaarkood u shalaaya laakiin hadda waa ka gaara oo barashadeeda maxaa la dhahay wax bilka yara lagu bartaa laakiin mar hore inaan iska barto way iska fiicneed asxaabay maalintii arbacada ahayd annaga waxaa noo soo yeeray warka adduunka ugu fiicnaa haddaan nahay qaxootiga Indonesia yacni ugu farxadda badnaa arbacadii sidaa u joognay unbaa waxaana loo soo boosti gareeyay warbixin Australia ka imaatay oo maxaa la dhahay xisbiga Australia laba xisbi waaye xisbi oo qaxootiga taageersan iyo xisbi ka soo horjeeda soo xisbiga qaxootiga taageersanaa ayaa waxay sameeyeen bilowga 2026 hadda aan ku jirno may 25 ee dacwadaas bilaaween 2025 waxay bilaaween in ay maxaa la dhahay qaxootiga Indonesia joogo oo dhan waa 13,000 ilaa 12,000 meelahaas waaye marka waxay dhaheen qaxootigaas oo dhan in hal mar soo qaadano qarashkii lagu soo qaadi lahaa iyo waxaas oo dhan in hal mar la diyaariyo ee codsadeen oo hal mar la soo qaado xisbigaas diyaarsaday oo geeyay baarlamaanka laakiin wali yacni annaga sida warka nagu soo gaaray first one in la ansixiyay markii dambe saacado kadibna haddana waxaa maqalnay inaan wali la ansixinin laakiin warka uu sax yahay soo marka qaxootiga Indonesia joogaan horta maxaa la dhahay waxaa ka mas'uul ah maxaa la dhahay UNHCR markii laga soo tago Australia dhaqaalaha ku baxaya qaxootiga Indonesia iyo wax kasta waxa bixiya 80% wadanka Australia bixiyaan sidaas darteeda dawladana heshiis ay la galeen inaysan qaxootigan aysan badda ku soo fasixin ay si sharci ah wadankooda maxaa la dhahay nidaam ay ku joogaan marka hore heshiisku wuxuu ahaa in Australia maxaa la dhahay qaxootigan ay qaadanayso haddana Australia markasta waxay ka cabsataa haddii ay qaadato maanta ay qayb xitaa qaadato inay dabal imaanayso soo warka waxa hadda la leeyahay waxa oo jooga dhan hal mar aan qaadano si kiiskan oo qaxootinimada UN-ta oo dhan loo soo afjaro sababtoo ah dawladda Indonesia naftirkeeda maxaa la dhahay dawladda hadda jirto qaxootiga kuma qanacsano in wadankeeda qaxooti ay sii joogaan oo qaxooti maxaa la dhahay wadan oo yacni heshiiskaas kuma qanacsano laakiin madaxweynayaasha qaarkood way isbedelaan madaxweynayaasha qaarkii hore oo jiray waxa way normal iska ahayd laakiin midka hadda jiro kuma qanacsano markasto wuxuu dhahaa waa in qaxootiga wadankeyga laga wada qaadaa oo wadan maxaa la dhahay wadankeyga uu marka waa kana KSV soo aadnay sheekadiyaaba ila tagtayba ka sheekeeya warkaas oo kale u baahantiin waan soo badinayaa commentiga igula wadaaga KSV da imaanay KSV dan waxay leedahay qayb ciyaalka hababaati looga dhigan karo ayaa horeeta wiilkayga uu sameeyay meeshan maxaa la dhahay keegiisa iyo fariis inta u soo qaaday baashaal yar ah meeshaas ku galnay qaybtaana kafeega lagu cabaa waxaan ku dhahay lagama sheekeyn karo qaybtaana dadka sigaarka caba fariistaan waatana cashadeeni waatana qaybna waxay dhaheen gadaala idinkaga keenaynaa marka asxaabay baashaal iyo waxaan ku dhahay jow bedel waxaan isla ciyaalka jawiga soo bedeshaano meeshaan ay ugu qashqashaadayaan marka insha Allah biidinillah warbixintaasna ilaahay subxaanahu wa ta'ala horta wax run ka dhigi karo oo waxna awoodo ilaahay run ha nooga dhigo warbixintaas waxaana soo gaartay saacado kadib yacni inaanan yacni la ansixinin laakiin warku uu jiro iyo qorshaha iyo xisbi taageersan warbixintaas oo maxaa la dhahay oo ku dadaalaya inuu warkaas run noqdo oo dadaalkaas dadkaas qaxootiga in laga wada qaado Indonesia yacni dad juhdi gelinaya soo laakiin dawladii iyo xisbigii kaleeto oo mucaaradka ahaa wali dhiman insha Allah kuwaasna ilaahay maxaa la dhahay ha noo soo saqiro inay qalinka noogu dhuftaan oo waxa way wadankan wax badan aan joognaa si fudud oo sahlan aan uga baxno insha Allah biidinillah ilaahay waxa way awoodi iska leh hadeertaan cashada iyo baashaalka waa ka soo dhamaanay waana kana annaga xaafadeena u sii soconna meeshan baadiyaha iska deganahay ka sheekeeya Jakarta iyo xaafadeena wax yar waxay isku jiraan maxaa la dhahay saacada la isku soconaa saacad
caasimada centerka iyo xaafadeena waxaa u dhaxaysa waxaa la dhahay 1 saacadood. soo marka hadda xaafadda waa iska sii hoyaadeena xilli dambe tahay inkastoo wadanka uu 100% uu ammaan yahay maasha Allah. haddeertaan waa xilligaas socon waa 5 saac iyo bar habeenimo 6 saac wax yaraa dhiman. soo marka wadan ammaan ah leh xilligan sida loogu socon karaa.